Asalaamu calaykum. Barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay xikmadii qosolka badnaa ee Robert Mugabe, madaxweynaha hore ee dalka Zimbabwe. Fadlan muuqaalka like saar haddii aad nagu cusub tahay, ku soo bir kanaalka daawasho wacan. Waxaan la hadlayaa dumarka iyagoo la qabo soo dhiga sawirrada qurxoon Facebook. Walaashayay weligaa ma aragtay alaab la iibsaday oo haddana la xayeysiinayo. Haddii ay dowladuhu make-up-ka ay mamnuuci lahaayeen, caruur badani ma ay aqoonsadeen hooyooyinkood. Afrika haddii aad aragto nin iyo xaaskiisa oo guriga bannaankiisa fiidkii ku leydhsanaya, hamoodin romantic, waa laba mid. Korontada ayaa guriga ka maqan, guriga ayay iskaga buufiyeen sun. Haddii uu daanyeerku lacag lahaan lahaa, dumarka oo dhani duurka ayay ku noolaan lahaayeen. Ha guursanin haweeney carmala oo ilmo wadata, waayo lama arag ciyaar hal iyo eber ku bilaabata. Ka waran haddaad aroos kasta ka qayb gasho welina aad tahay single. Waxba kama duwanid hoolka aroosku ka dhacayo ama taandhada lasoo kiraysto. Afrika digniinta keliya ee laga cabsadaa waa Peter Low. Walaashay inaad nin hantiilaha shukaansato kama dhigna inaad hantiilo tahay. Xiriirkiina oo dhammaada ayaa xaaladda ka dhigi kara sidii telefoon restart loo diray. Haddii ay ka hor timaado gabadh uur leh, ha ku qoslin ee adigu istijaabi marka hore inaad dhalayso. Waxaa sidaa Robert Mugabe. Haddii dhakhtar iyo kalkaalis ay isguursadaan, miyaanay isku dhalaynin bukaan? Haddaad guursato gabadh 20 jir ah, waxaad ka dhigan tahay adigoo joornaalkii subaxdii soo baxay iibsaday fiidkii. Haddii ay gabadh dal kale ku tiraahdo idhunko, si fiican u dhunko, maxaa yeelay waxaad matalaysaa dalkaagii oo dhan. Daawadayaal, muuqaalka xigeenteena ku kulmayno. Nabadgelyo.